keligay baan noolahay stress iyo caqabad baan la noolahay waxa aan ku nafisay kaliya waxa waa inaan mobilkayga soo hor fariisto Soomaalidiina aan ku nafiso marka ma joojinayo igu naxa hadar wiilkan dhalinyarada ah ee aad arkaysaan sida uu ilmeynaya ay ka muuqato duruufaha iyo dhibaatooyinka badan waxa la abshir gaarane waxa uu ahaa fanaan magaalada Muqdisho ayaa lagu xiray waxa xirtay hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka intii uu agaasimo ka ahaa Fahad Yaasin Xaaji Daahir dalkan oo madaxweyne ka ahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo muddo toddobaadii ah xirnaa kadib waxa la sheegay in koronto lagu dhajiyay in la dhibaateeyay in muuqaalaan shaxuma laga duubay iyo in loo geystay jirdil dhaawacyo u geystay caafimaadkiisa maskaxiyan iyo midka jireedba ay kadib ku qasbeen inuu qirto inuu yahay fanaan sidoo kalena al-shabaab ka tirsan oo gobolka Banaadir oo ka shaqeynayay dabadeedna waa la sii daayay hadda wuxuu ka noolaan laayahay sanado kadib waa ku dhawaad 5 sano kadib magaaladii ayuu ku noolaan laayahay bulshadii ayuu dhex gali laayahay waa shaqaysan kari laayahay niyad wanaag iyo caafimaad uu ku shaqaysto ayuu sidoo kale weysan yahay waxay dantu ku kaliftay inuu baraha bulshada soo istaago oo ku ciil baxo ama uu ku nafiso isagoo dhibaatadii loo geystay sheeganayo muuqaal yar oo sugaan ah ayuu soo duubay oo uga hadlayo Fahad iyo Farmaajo dhibaatadii ay u geysteen dadkii ay shaqada u idmadeen ilaa waqtigan ayaga aysan ka hadlin looga cudur daarin bulshada Soomaaliyeed oo ku dhex noolaan laayahay muuqaalkan markoo nala daawo kadibna waxaan idin soo gudbin doonaa falcelinta ka dhalatay muuqaalkii oo duubay Fahad iyo Farmaajo kuwii aad fasaxateen hadday ugu fogaadeen filim been isaareen adinkuna falcelinayo ficil in kamaan helin anna wali fagaaraha fadhiyada ma tagi karo falanqayntu waa sidaad faafiseen dahab kale xaqiiqi dad qaraabadiisa ah dhinaca kale markii loo eegana qaraabo la ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa eedeyn kala dul dhacay qaarkoodna taleefano ay u soo direen waxay ku cadaadiyeen in muuqaalkii aan hadda idin tusinayo oo ka bixiyo bartiisa TikTok iyo bar oo ku leeyahay Facebook oo soo dhigay laakiin pressure badan oo la saaray qiiladaan eedeen iyo eraya aan wanaagsaneyn oo uga yimid kadib mar kale ayuu muuqaalkan duubay wuxuu sheegay in caafimaadkiisa oo halis ku jiro waxa uu sheegay inuu ku dhow yahay inuu waasho waxa kale uu sheegay in nolosha uu ku dhibtooday inuu u baahan yahay inuu social media ku nafiso inuu u baahan yahay dadka Soomaaliyeed oo la hadlo wuxuu kale oo fariin u diray dadka commentiyada ka bixinayo ama aragtiyada ayagana aflagaadeeniyo wiilkan dhalinyarada ah muuqaalkan ayuu markale soo duubay wuxuu codsaday in laga daayo cadaadiska lagu saarayo inuu ka leexdo wax ka sheegida dadkii dhibaateeyay mustaqbalkiisa video 20 daqiiqo 20 second soconaya baa wuxuu ka saameyn badnaaday muuqaaladii wareysiyada aan duubi jiray oo maxaan ku raahdaa saxaafadda aan siin jiray taasoo ilaa ay xalay toole Soomaaliya idinka laftarkeena pressure uga keen saarana marka hal mid aan rabaa inaan idin sheego jooji baa igu dhaxdeen ma joojin karo mana joojinayo inkastoo aan mar walba aanan wax nolosheeda ku saabsan soo duubin laakiin halka mar oo aan maxaan ku raahdaa adkeysan waay oo aan dul qaadan waay ma haysto walaalan ku nafiso ma haysto saaxiiban ku nafiso ma haysto cid maxaan ku raahdaa igarab taagan oo maanta xaaladeyda inta isoo wacdo ama ii timaado idhahaysa abshiro xaaladaada xagee ku dambeysay xagee maxaan ku raahdaa wax ku marayaan xagee ba maxaan ku raahdaa kala joogtiin adiga noloshii xumeyd xagee kala joogtaan cid dhahda ma haysto keligay baan noolahay stress iyo caqabad baan la noolahay waxa aan ku nafisay kaliya waxa waa inaan mobilkayga soo hor fariisto Soomaalidiina aan ku nafiso marka ma joojinayo igu naxa hada rabtaan igu naxa maxaan ku raahdaa bal ha igu dhiirigelinina inaan joojiyo ilaa aan cadaalad ka helo ilaa aan maxaan ku raahdaa ka noqdo afshirkii shalay la yaqaan ilaa aan ka noqdo haddaba waxa jirta laba kaalin ama 3 kaalin oo dadka Soomaaliyeed looga baahan yahay waa mare haddii wiilkan la sheegay inuusan al-shabaab ahayn xiriir la lahayn isagana dhibana u yahay eedeentaasi waxa dadka Soomaaliyeed marka ugu horeysa la gudboon inay caawiyaan oo ay taageeraan waa muwaadin waa wiil dhalinyaro ah mustaqbal leh oo sheegay inuu xaalad adag ku jiro caafimaadkiisana halis u yahay dadka Soomaaliyeed ama commenti ama kuwa la jooga dhamaantoodba iyo kuwa shaqooyinka bixiya waxa la gudboon inay caawiyaan oo ay ku dadaalaan sidii uu u heli lahaa niyad wanaagsan oo uu bulshadiisa kula dhaxnoolaado dawladda Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladdiisa ayagana waxa la gudboon inay gargaar iyo garab istaag u muujiyaan muwaadinka Soomaaliyeed oo qalinka dawladda awoodda ama sharkii dawladnimo lagu dhibaateeyay haddana dhibana wax agaasimaha hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Mahad Maxamed Salaad oo jooga xafiiska shalay muwaadinkan iyo dad kale oo Soomaali lagu dhibaateeyay isagana oo intii uu mucaaradka ahaa dhibaatadan iyo kuwa kale ka hadli jiray waxa isagana u furan
inuu wiilkan dhalinyarada ah ee magaca hay-adda nisa iyo awooddii hay-addaas lagu dhibaateeyey garab istaag u muujiyo loo garab istaago inuu soo kabto dhibaatadii gaartayna oo ka soo kabto aad iyo aad u mahadsantihiin soomaalida waa ku iscaawiya arrintaana waa arrin murugadeeda leh xanuunkeeda wadato oo uu dhibana u yahay muwaadin soomaaliyeed wargelin muhiim ah isbitaalka albarakaad wuxuu dhammaan bahda caafimaadka ogeysiinayaa inuu u diyaariyey qalliimada qurxinta iyo gubashada jirka ee loo yaqaano plastic and cosmetic surgery oo hore aan waddanka looga samayn wixii faahfaahin kala xiriir taleefanada shaashada kaaga muuqda ama emailkooda admin@albarakadhospital.com